maanta waxaan qaadanaynaa mowduuc muhiim ah. Mowduucaas waxaa weeye ramadaanka insha Allah markuu noo dhamaado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri arrin cajiib uu noo sheegay. wuxuu noo sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man saama ramadaan thumma atba'ahu 6 min shawwal فكأنما صام الدهر. qofkii ramadaan soomo oo dhamaystirto yani insha Allah ta'ala ثم raacsiyo 6 min shawwal 6 bari oo shawwal kamid ah فكأنما wuxuu lamid yahay صام الدهر كله inuu soomay wuxuu lamid yahay sanadka oo idil ma sha Allah tabarak Allah waxa ka fadli badan walaalayaal. marka insha Allah bisha ramadaan markay dhamaato waa in aan soono 6 maalin biidna Allah tabaaraka wa ta'ala oo ciida aan ka dambaysiino. maalintii ciida طبعا lama soomayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam waa nahiye alayhi salatu wassalaam naha rasuulullah يعني عن صيام العيدين لبدا عيد إلا صومه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم maalintu farxad weeye lama soomo maalintaas. laakiin maalmaha ciida ka dambeeyo ayaa mataqaanaa ay furan tahay. yani qofka hadduu rabo 6 shawaal waa isku xijin karaa oo isdaba raacin karaa. hadduu rabo bisho idil isniin iyo khamiis walbuu ka soomi karaa. waxaase ka sii qurux badan 13 iyo 14 iyo 15 waa maalimo bil walbo islaamiga laga soomi jiray oo la yiraahdo ayaamul biid. marka maalimahaas haddaan ka soo hormarino 3 cisho oon soono 10 iyo 11 iyo 12 haddana waxaa ku soo gelay 3 kale oo fadli leh 13 iyo 14 15 bisha islaamka ee bisha shawaal ah. markaas ajir badan baa iyadana mataqaanaa isku xigto oo fadli dheeraad ah. fadligii 6 shawaal adoo sooman iyo ayaamul biid maalimo ayaamul biid ahaa oo iyagana aad niyeysatay. inama al-a'maalu bin-niyaat. ilaahayna mataqaanaa ajirkeena iyo xasanaadkeena iyo soonkeena hanoo daacifo ya rabb al-caalamiin hanoo